Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Welcome back. Soo dhawaada mar kale. Maanta waxaynu baran doonaa waxa la yidhaahdo possessive nouns. Magacyada oo lahaanshaha sheega. Possessive waa lahaansho. Nouns waa magacyo. Ali has a cow. Ali wuxuu haystaa sac. If haddii we want aanu rabno to say inaan dhahno that taasi the cow saca is his isaga ayaa iska leh, we can say waxaanu dhihi karnaa it is Ali's cow. Waxa weeye cali siciisii. Adding apostrophe s calaamadaas waxaa la yidhahdaa apostrophe waxay sheegtaa lahaanshaha. Marka aynu ku darno apostrophe s shows waxa ay tusaysaa ownership lahaansho. Ali wiilka la yidhaahda cali has waxa uu haystaa a cow sac. If haddii we want aanu doonayno to say inaan dhahno that taasi the cow saca is his isaga ayaa leh, we can say waxaanu dhihi karnaa it is Ali's cow. Waa cali siciisii. Adding ku darista apostrophe s shows waxa ay tusaysaa ownership lahaansho. Remember xasuuso nouns magacyada that end kuwaas oo ku dhammaada with s sta ku dhammaada. We add waxaanu ku darnaa only keliya the apostrophe keliya ayaanu ku darnaa. Magaca haddii uu s ku dhammaado apostrophe keliyaad ku daraysaa. Tusaale ahaan Shamis gabadha la yidhaahda Shamis has waxa ay haysataa a car gaari. Marka la rabo in apostrophe lahaansho lagu muujiyo waxaa la dhahayaa it is waxa weeye Shamis's car. Shamis gaarigeedii. Marka u fiirso meeshii apostrophe s meeshii lagu dari lahaa waxaa lagu daray keliya apostrophekii. Marka magaca hadduu s ku dhammaado apostrophe keliya umaad ku daraysaa si aad u muujiso lahaansho. The bird shimbirta has waxa ay haysataa a nest buul. The bird has a nest. Waxay noqonaysaa marka apostrophe lahaanshaheeda lagu muujinayo the bird's nest. Shimbirta buulkeeda. The bird's nest. The egg ukunta has waxa ay leedahay spots. Calaamado ama barabaro. The egg has spots. The eggs spots. The eggs spots. Ukunta barabaraheeda. The umbrella dallada has waxa ay leedahay ama haysataa stripes dildiilimo ama xariiqimo. The umbrella dallada has waxay leedahay stripes dildiilimo. The umbrella's stripes dallada dildiilimaheeda. The umbrella's stripes. The flowers ubaxa have waxa uu haystaa ama ubaxyada waxay haystaan petals. Petals waxaa la yidhaahdaa ubaxa dhagihiisa. Ubaxa markuu sidan yahay kuwan ayaa la yidhaahdaa petals. Waa dhagaha ubaxa dhagihiisa. The flowers ama waxaan caleenta u ego ubaxa ku yaala. The flowers ubaxyada have petals. Waxay noqonaysaa maadaama flowers ay s ku dhammaato apostrophe keliya ayaa lagu darayaa. Markaas waxay noqonaysaa the flowers petals. The flowers petals. The birds shimbiraha have waxay haystaan feathers baalal. The birds shimbiraha have waxay haystaan feathers baalal. The birds feathers shimbiraha baalashooda. Marka waxaa lagu daray apostrophe keliya oo st laguma darin sababtoo ah birds waa plural s ayay ku dhammaadaan. Haddii ay hal shimbir ahaan lahayd waxaa la dhihi lahaa the birds apostropheta s ayaa lagu dari lahaa the birds feathers shimbirta baalasheeda. The birds feathers. The rabbits bakaylayaasha have waxay haystaan ama leeyihiin long ears dhago dhaadheer. The rabbits have long ears. Waxay noqonaysaa the rabbits long ears. Bakaylayaasha dhagahooda dhaadheer. The rabbits long ears. Waxaa lagu daray apostrophe keliya. Sidoo kale waxaa jira wax la yidhaahdo possessive pronouns. Possessive pronouns waa magacu yaallo oo markaasi muujinaya lahaansho.
you can show you can waad awoodaa show inaad tusto ownership lahaansho another way jid kale by using adigoo isticmaalaya possessive pronouns magacuyaalada oo lahaanshaha sheega tusaale ahaan that house gurigaas is mine aniga ayaa iska leh cali said cali ayaa that house is mine marka mine waxa ay muujinaysaa oo ay u taagan tahay mine waxayga possessive pronounska waxaa ka mid ah mine his mine waxayga his wixiisa yours waxaada ours waxeena has waxeeda iyo it is oo loo isticmaalo shayaasha aan noolayn ama aqliga aan lahayn mine ereyga mine ama waxayga is the possessive pronoun waa magacuyaalkii lahaanshaha sheegaya that tells us kaasoo noo sheegaya cali believes inuu rumaysan yahay that house gurigaasi belongs inuu leeyahay to him isaga the house guriga belongs waxaa iska leh to him isaga marka haddii si kale lagu sheegi rabo inuu isaga leeyahay waxaa la dhihi karaa it is his isaga ayaa iskale ama waa wixiisa it is his those feathers baalashaasi belong waxaa iska leh to her iyada those feathers belong to her the feathers baalasha are hers ayaa la dhahaya hers waxeeda ama iyada iska leh that book buuggaasi belongs waxaa iska leh to me aniga that book belongs to me it is mine waa waxayga it is mine you lost waxaad lumisay ama kaa lumay this key furahani you lost this key it is yours adiga ayaa iska leh it is yours we made waxaanu samaynay this tani together isla jir ama wada jir ayaanu ku wada samaynay therefore sidaasi daraaddeed it is waxa weeye ours waxeena ama innaga ayaa iska leh it is ours that tire shaagaasi ama taayirkaasi is flat wuu banjarsan yahay it has lost waxa uu dhumiyey ama ka lumay it is air hawadiisii ama aaryadii ayaa ka baxday it has lost it is air fiil buuxi in the blanks meelaha bannaan ee tan idinka ayaan idiin daynayaa waxaan doonayaa inaad isku daydaan oo aad ka shaqaysaan kadibna jawaabaha meesha hoose ee commentiga igu soo qora aad iyo aad ayay muhiim u tahay in aad exercise ama layli aad samayso si aad fahamkaada u tijaabiso waan sixi doonaa waana jawaabta waan kuu soo geli doonaa oo waan kuu jawaabi doonaa marka fadlan hoos labadan su'aalood ka soo jawaab meelahaas bannaan soo buuxi waxaana doonayaa inaad isticmaasho apostrophe ama apostrophe keligeed ama apostrophe iyo s hadba midkii ay qaadanayso marka isku day in aad ka jawaabto waxaa la leeyahay the kangaroo bahashaasi xayawaankaasi la yidhaahdo kangarooga has a baby waxa uu haystaa cunug yar the kangaroo has a baby marka waxaad ii sheegaysaa ama aad muujinaysaa ood halkan bannaan ku qoraysaa adigoo isticmaalaya apostrophe ama apostrophe s babyga ama cunugaasi yar in uu kangarooga uu leeyahay uu dhalay the monkeys daanyeerada half waxay haystaan bananas moosas ama moose the monkeys have bananas marka halkan hoose waxaad muujin doontaa ood iigu sheegi doontaa in daanyeerka uu leeyahay mooska isaga cashirkii maanta intaas aynoo joogo inta aynu ku kulmi doonno cashirkan la mid ah waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo